daawadayaal hadda waxaa garabkayga fadhiya xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo aad wada garanaysaan oo xildhibaan madii hore golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanka ayaan wax ka weydiin doonaa bal xaaladiisa caafimaad madaxweynaha hore Soomaaliland ayaa xalay ku soo booqday muddooyinkii ugu dambeeyay dadka qaarkood waxay lahaayeen xildhibaanku wax xanuunsanaya bal ka war ayar waa runta xalay uu yimi waa saaxiib baan nahay saaxiib qadiimi baan nahay uu waayay gurigan ugu tagtagi jiray uu waayay taasoo ah ishaas xanuunaysa oo laga camaliyay ay sababtay ayaan bulshadii ka fariistay marka uu waayay waana xalina uu yimi alxamdulillah rabbil caalamiin uu yimi xalina marka waan caafimaad qabaa waan wanaagsanahay ishaas midigta ayaa laga camaliyay amaliyad baa u dhacday amaliyadii halka mar laga camaliyay amaliyadii way hagaagi weeyay marka way xumaatay markii xumaatayna sababaan ayaan tagay muddo 20 cisho abaan joogay waa laga soo iyadana waa lagu camaliyay marka amaliyadii still waxba ay weli jirto laakiin way roontaa si waanga ku arkay isha ku arkay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay aad iyo aad baan وعافاك قبا يسوع دعية ذلك Soomaaliland ذلك ملك استيج وحنا ليه أجونك لغور مايه يسوع دعية له عافاك خير قبا يسوع دعية ما له إيش عمر كلجي مع الدم يشرع واحد كلا أو حركة ما يشرع وإيش أسوأ الحمد لله رب العالمين قلبت وصل له وياه إيش أسويان كان كلنا عاد بفوشن ولا بعد عاد ما في شيء بيتبلغود جيه ما كانت تي بيحده ولا لا جماعة مدين وعاد بيفوشن لكن تي ميك اللي عمليه وناسني منك وآدم وأكيد وحسيت عمو حركية إن شاء الله بالله كريم وي أفضل إلها وسواتنا كل حلبة واحد كمل هذا حلبة هذا أنت بدل أطودا أما بواحد لا إن أي راحدو الرمها بالشدة ضدك تلعسن مدين كي قدام بينا واحد شرتها إن معيشة دي قالي ودي أقول حلبان هذا أقول دودي شرب هذا هيد إن كستوعد بريها ضم بالحنون كاسي يوري بدي حلكي نور ما هذا أي رماه سي سببين بل حاول رفرنت الدر الله تا معيشة دي ويك عادي تدفع عين كاسي تلعسن ومعيشة دي فوق عادي وحبوا كمان والله وحلا يحكونوا لي من جرس مركا وحلينا يولد بركيس وحلينا معيشة داك عادي وحلا قبته وتدفع معيشة فوق عادي وتد مساكينة تدخلوا قال خذوا دي وياك يمال لوي وإك ويكادي أنا سير ويكادي ما كادي هذه اللي كجارسين ولا مليه يتدخل كل ولا ما يلمح وين عارفين تاجل ما ليني تودني مكوينة كشا وعمل كسم يسا إن تبقور أي كسم يسا هذا هذا وحي عمل وحي كوك عليه إن بالشدة سير كوك عاي وين تبقى لا وحلا قبتها مولانا يا أهلا وسهلا وين يقدرون يعني dawladdu wax ka qabataan ayman ku bogaadin in dawladdu wax ka qabato meeshada kor u qaaday baasuu ka mid yahay khutuwaad ka mid yahay ka mid weyn waxa laga qabtaa online waxa jirta arintii loolankii shirgudoonkii xildhibaanada cusub hadda la doortay ee bedeli doona ay ugu jiraan gaar ahaan isbahaysiga xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadii bal arintaasi sidee bay kula muuqataa maxaad fariin u diri lahayd والله وحيلا مقطع كده ورش سفعة بينه وبعضي أهلا وسهلا سفعة وبعضي كان نوحا لنا سي كواس هؤلاء حزب وطني هيا يو كلمية والله خلاص كي ما بد لما من راس عنو سكسور شرحي هيا والله خلاص إن شاء الله لكن ما هم كتيرين سفعة وبعضه أو سوى لما وبعضه وأن تحايل ورحبيل أو يرتو marka labada nin waa laba nin ku habboon oo iska inkastoo ninkan kulmiyo uu yahay oo dadiisu way aad u weyn tahay ninka ay wadani ayaan aad iyo aad u jecelahay inuu halka booska ku fariiso oo maanta booska isagu hantiyo oo xaqna u leeyahay footi ma lu qaaday marka taasaan u haday xildhibaane waxa bariyahan dambe jirtay in dhalinyaro reer Soomaaliland ma gobolada qaarkood ay calankii buluuga xidheen maalmo ku baagnaa maalmihii la xusi jiray ma noqoto idimay ama 16 Juun oo kale dhalinyarta reer Soomaaliland inta badan aan waxba ka ogeyn halgankii qaranimada Soomaaliland soo maray maxaad u dir lahayd calanka Soomaaliya inta badan gobol waxaan u dir lahaa halgankii Soomaaliya gaarin
halgankii soo gaaray maanta calan may hargeysa kamay luleen hargeysa markii la soo galay way dambe anu khaliijkan joogay gudoomiye khaliijkan ahaa halkaasaan lacag ka soo diri jirnay dadka waa la baabiyey baabuurba lagu xiri jiray haddii maqlaan isagoo noolba inta labada lugood inta lagaxyo ayaa la carari jiray dee maanta muqsho kumay mudaharaadeen waxaan leenahay walaalayaal ninkii muqsho doonaya ahlan wasahlan ha tago huwa xor laakiin somaliland way dhaqaaqday waa dowlad guuna way dhaqaaqday insha allah billahi kariim way halkaana way kasii horumari kartaa marka waxaan leenahay dee haddii ninkii doonaya inuu muqsho tago dee tag u shaqo tag waa loo shaqo tag waa wadan xor oo jaarnahay oo soomaaliya waxa weeyaan 5 Soomaaliyeed baa la doonayay waa la waayay 1884kii partition of Africa jiray marka inaka British Somaliland baa la nooga jiray Italy Soomaaliya Djibouti iyo Russia marka hadii laba shanta in isku keenaba ayaa ahayd hadii shantii ay leeyahay isku keeno dee ahlan hagooda ka ololayeen oo caalamkan xidig buu leeyahay xidigta micnay leedahay waa shanta Soomaaliyeed marka laba Soomaaliyeed hadii ahaan lahayd waa Soomaaliyeed ma noqon lahayd marka Soomaaliyeed weli lama hayee shantaba u ololayo shantaba isku keen marka shantaba isku keentaan ahlan wasahlan xildhibaane aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa jirtay goli deegaanka oo tila doortay maayar baa loo doortay caasimadda Hargeysa maalmihii ugu dambeeyna olole iskaa wax u qabsa ayuu bulshada ugu baaqay oo lagala qayb galay bal maayarka sidee kula muuqato ololahaas iyo nabad Allah maayarka waan u duceeyaa wallahi habeen walba u duceeyaa waa maayar wanaagsan weyna yar wanaagsan marka wadooyinka dhisay uu la shaqeyn jiray halkaas uu caawin jiray oo dadku inta wax ku darsaday Allah barakeeyo marka waxaan maayarka wala shaqeynaa shalay indhaha saxib wallahi waa inaan ka qayb galaban doonayay insha Allah maalinta dambe ee nadaafada laga magaalada lagu raayo waan ka qayb gali doonaa ayaan insha Allah billahi ratiiniya laakiin waxaan leeyahay maayarkan la shaqeyno maayarkan la shaqeyno hadii la shaqeyno magaalada Hargeysa waxay noqon caasim bay noqon kartaa wadooyinka hadii aqal walba hadii aan $50 nin walba ku daro nimanka bacmashariga magaalada min laan ka dhigi lahay marka waxaan leeyahay waa la shaqeynaa dadkan waa la shaqeynaa ayraaka ka sii wadban ku leenay alla garabka galo waan ku kalsoonay baan leenay Umar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.